waxaan waa jacayl bi waa jacaylow warbaarka la iska jiro cadaaladda ha laga taliyo dumarka yaa lagu tumanin sidii la doonaya ragow laga yeelin bartaad ka daawanaysaa waa bartaan aan ku leenahay youtube-ka ee joof iyo johrad sabisgaraab leegta sheerta hablaha jacaylka ha lala saayiro alla waa goonideed laakiin dareenka dhabta ee ma aha wax dhammaado 3 sano qofaan ka daba wareegayo oo dhufaad iyo silac iyo dhaqaalahayga u baabi'inaa luqan oo iga jaran ogi luqaan ii kabaynin igu haaye u malay maanta inaan iloobi doono ilaahay ha i badbaadiyo inaan badbaado waan jeclaa ilaahay ha i badbaadiyo okay ma u sheegtay intaan jacaylka la wadaagin hablo fara badan baa jira awlaadooda aasa awlaadaha lama aaso way dhacday tabarucaadkanay ka dhacday meelo badan bay ka dhacday messengerkay ka dhacday snapchatkay ka dhacday snapgramkay ku dhacday way dhacdaa in dumaro fara badan aruurahooga ay aasaan waxaan ka wadaa aasaan gabadhi waa single mother isku tumatay inan bay baranaysaa kii hore waa la kala tegayaa ilmihii axmed yare ahaa axmed yare way duuduubaysaa way aasaysaa ma dhalin ma arag iyo ma urin bay tiraa kabacdii markuu jacayl iyo kalgacal meeshii imaado caruurta horea loo seexiyaa waxoo la yiraayo inaana qulul lagu hayarsaa loogala baxo badh baa lagu xareeya caruurta ma laga yaabaa awlaad inuu kaaga boodayo kolkii hore umaad sheegin inankaad jacaylka u qaaday inaad 2 caruuro dhashay in nin khasab hore lagugu garbaduubo oo lagu siiyey sirta nolosha ee realityga jirta ugamaad warramin ma lays oran karaa awlaadeed ilaahay ma qarin anigana qarin maayo awlaadeedii jarmalkay igu dhasheen anigaa haysto anigaa korsado subaxii gadgaardigooda geysto kama qarin shala wuu igu rabay wuu igu baahnay baakirada soomaaliyada dumarkii dhanaa wada naafe gabar walbaa la sheegay facebook wax ka dhacay fiiri snapchat wax ka dhacay fiiri meel walba wax ka dhacay fiiri gabadha calays gabadha ooyeyso dumarkii dhanaa wada naafe dumarkii dhanaa la wada naafay aniga keliya ma xanuunsani laakiin dhibkana haystaa waxay tahay soomaalida ha ooyin walaalo kol haddaad suldaankan usoo magan gashay xafiiskiisiina magan baad u tahay ha walaalaha igu dul ooyin oohintaadu anigu waa naafadayda tabarucaad hore ooye oohintoodii iyo huqdii baan soo kaban lahay waxa weeye aad iyo aad baan uga xumahay in hablaha soomaaliyeed amase kuwa ajaanibka islaamkaaba inta jacayl lala jiro in hadhow toole lagaga baxo dahab iyo diinaar waxay hayeenna raggu iibsadaan hadday jirto aad iyo aad baan uga xumahay waan canbaaraynayaa dushaan uga tuurayaa weliba waan ugu ladgayaa waxa weeye walaashayey waxaynu isku dayeynaa sida aynu xal waare uga geli lahayn markabyo dega iyo quruumahoo isku rugmada iyo xuquuqul insaanku cidiyahaas la galaba waa la xaliyaa laakiin xal baan isla degaynaa marti ummadda soomaaliyeed baad u tahay marti makhaayadda tabarucaadkaad marti u tahay laga bilaabo caawa fariintaadu way gaadhaysaa ummadda soomaaliyeed maqrib iyo mashrib cadceed ka soo bax iyo cadceed ka soo dhax meel kastoo joogaan waxaynu helaynaa xal waara ku kala keenayaa isaga koobigiisii soo qabanayaa ku samirsiinayaa kuu ducaynayaa waxbaan keenaya waxaan ka codsanayaa qof walba oo soomaaliya oo sidaa dugtada oo ilaahay ka boqo ilaahay inuu iga baryo ninkaas ilaahay inuu ii sahlo waan jeclahay kama maarmo waan u baahanahay ma isku dayday okay isoo jeediyo qalbigiisa waynu soo jeedinayo waynu inagaa dismis ku furfurayne ma isku dayday dhibka adu kaaga tegaya waxay tahay dhibku ma adiga ma isagay u gooni tahay ma isku dayday contact hadda ma la leedahay meel walba baloo iga saaray war baloogaasi waa waxaanu arkayno messenger nin laga barta baloogiisaan ogahay snapchat laga soo jaasa baloogiisaan ogahay waxyaabo badan baloogiisaan ogahay waxaasi waa waxyaabahan walaalidii ka digayay messengerkii waa kaa baloogay meel walba iga balooga koolkii iga balooga niseedkii iga balooga meel walba balooga iga saaray waan jeclahay adduunku waxaan ka codsanaa in la badbaadiyo
maxaa walaal waad badbaadaysaa walaalo badbaadada ilaahay baa haya waad badbaadaysaa weligiina waa hortiina waad nooleed haddana waad nooshahay waanad noolaan doontaa waxa weeye walaalo walaalaanan ilmahaysirin oonan ilmahayga u baqaynin oonan isdhaynin maanta ilmahaaga way kaa gaaloobaan ilma islaamnimo xalaalnimo aad ku dhashay way kaa gaaloobayaan gaaladaa la wareegaysa walaal ha ooyin macnihiisu ima joogto wadanka oo maanta ilmahayga dhibax gaaran qaadanayso haddaanan isdhaynin ilmahayga aanan ku dhaxaynin tariimada isku dhigi lahaa walaalo tareen ha isku dhigin naftaadana walaala ha kalifin haddii uu qofku naftiisa gooyo iqaab xun iyo meel xun buu ku dambeeyaa marnaba ha isku dayin inaad naftaada u gacan qaadid absolutely maba dhici karto hana ku fikirin waxaynu isku dayeynaa oon kuugu celcelinayaa oon hadal adag kor iyo hoosba kuugu leh waynu dayeyna xal gaara oo adiga iyo xaajiga aad jeclaatay isku kan soo celiya walaalo say ummaddu fariintaada uga dharagto ama hadalkaaga u fahanto waxaa jira imiga caruur adeysatid aad dhashay aabahood sow aabahood ma halkan kugula nool yahay maadaamuu aabahood halkan kugula nool yahay walaalo intaad kaa hore iska ilowdid ma isku dayi karnaa aabahoodkeed caruurtan kaa dhalay isaga kaaga horreeyey in aad ama soo celisid ama aad isku daydid waxaad u qaaday isaga inaad in ka badan u qaadid walaalo nabar lama qari karo xanuun qof qari karta malaho xanuun ay haayo aabahooda tiska dhaabtay ragga soomaaliyeed oo dhan dunida dhan waxaan u maleeyaa dunida dhan dadka jooga shimbire inay yihiin asaga uu keliyaha iyo muuqo xaqiiqdana kan kaalaado walaalo wax wey waa oo ma ilaa suldaankuba shimbir ba war dhib baana haystaa bi waa jacaylow baan bi maqli jiray bi waa jacaylow boogaan la dhayno beerka iyo wadnaha iyo wax sidaasa beriba ayna karino wax saasa waxa weeye wax reality waa wax jira waa wax walaasheen la soo dasiray la soo jaaray aad iyo aadna u gubayo kulul waa jacayl haddaba jacaylku wuxuu yahay iyo micnihiisa waa taqaanaan qof uu ku dhacay na loo sheegi maayo lax dhunkana warkeed badaa dadadka yar hadda jiraya fariin bay u tahay single fatherka ku socota fariin iyo message bay u tahay kuwa hadda soo hahayana iyagana wayba ogyihiinba waxa weeyaan walaalo maadaama adduunka dushiisu shimbiro duulayo ku yihiin waq isagii uun calan lagaaga dululay isagina messenger kaa baloogay whatsapp kaa baloogay lamberna hadalkiisa daa ma isku dayday asxaab buu isagu lahaa ehel buu lahaa ma isku dayday in aad ileen dhibka ku haysta si aad uga baxdid aad asxaabtiisii la hadashid u sheegatid inaad ninka saaxiibkii dartii aad u dhimanaysid ama aad naftaaduba khatar ku jirto ma isku dayday qof aanan u sheegin male ehelkiisaan wacan qaraabadiisaan nacan laakiin waxaa noqda walaalo qof bukaanka lagu nacay bukaankaa lagu naca walaalo okay walaalo saddexdaad shareed sheekeysanayseen ma markaad horeed sheekeysanayseen ninkan ma waxaad ku tala gasheen mustaqbalka inaad isguursataan oo sheekadu waxay ahayd heer mustaqbal ay soo gaadho dhawaato baad ku kala tagteen mise intaydan guur iyo mustaqbal iyo aroos iyo haydaan gaadhin baad kala boodeen walaalo gabar boodnimada ku nool waxay jeceshahay ninka ay jeceshahay inay mustaqbala wadaagto awlaadiisa ee dhabta saarato qofka intaas aan ka daba wareegaya mustaqbalan ka rabay asigana wuu ii sheegi jiray okay adduun miyaad ku xujaysay oo adduunkaa igu soo doon miyaa tiri ma adduun iyo aroos iyo dumarraa iska jira iska adduun jecel sida aroos loo dhigo hotel hebel oo loo kareeyo lacag badan oo laga dhiibo ma laga yaabaa jeebkaa jeeb nacas ka noqday oo ninku jeeb dilaacuu diiday ma ku dayday lacag saasa walaalo dhaqaalo uma baahni konta
صدق إيروجان مرتلسكم هيرسدو مسجد كالسية حتى أنا قد يروائنا ديبتو تقالوا ما تقوموا بأهني جمال كايسيب وحتى قالوا عن كل شيء مره قف أنا جعله وقف كنقالوا له كل شيء اوكي مدة انت لك بالحدث فيك لما قلتي مدة انت لك اياتيك لما قلتي هلو لبا بلود با حتى ايناد كهلين ان انو نور yahay iyo inuu dhintay laba bilood baydaan wada xiriirin walaalaha ooyin alool adayg waxaynu ka hadlaynaa ummad Soomaaliyeed ay waa reality waa wax jira dumarku waa beer jilicsan yahay ragow hadaan loo nixin ragow hadaan ilaahay laga baqin ragow rag baynu nahay hadaan dumarka loo turin mala awaaliyo uu la soo heshiisay iyo walaaxaaga walla bina ka saaraynin waa reality waxaan wala xisaabinayaa qowlkaad leedahay malaa'ig baa qoraysa labada garbood saaran waxa weeye waxan waa reality dadka inta jaceelka ku beeraan dadka inta farataystaan ay adduunka ka gurtaan dadka inta meelaha ku raadsadaan maasinjarada hadhow toolada dumarada waxa ku sameynaya aad baan uga xumahay dumaradu sidoo kale iyagana rag naafaa baa la soo helaya dacwadoodu way balaaran doontaa xuquuqul insaanka qaramada midoobay kuwa dadka isku dhaca kala joojiya kuwa badaha kala xukuma UN-ta iyo nin kasta oo adduuweynaha wuxuun ku abtirsada jacayl ama ku lagu dhalay waxaan ka leenahay baaqa ka soo gaar inantaas Soomaaliyeed xamde kaahin nin bay ma 3 sano is jeclaayeen naf iyo maal bay siisay cirkay gaarsiisay cirka waxayna ahayn bay ka soo dhigtay shaatiyo fiican bay u gatay adeerow damuraad ku lahaa markuu gaaray buu ka socday maxaad u qaaday liisankii bay xitaa wadagaa maqlaya waa gabadh Soomaaliyeed waa ooyeysa liisankii bay tir xitaa waan u qaaday liisankii baabuurka xitaa waan u qaaday dad baa jireen marka runta laga hadlo dadka ku meel gaara markii reality u hadlo aynu ka saarno waxay ciyaara dad baa jira dadka ku meel gaara ama qof dumar ha noqoto ama nin ha noqoto shakhsiyaad ma sheegayno gaara attack personal lama sameynayno laakiin reality baan ka hadlaynaa inan ku dan gaara inan ku dul gaadha markay danta ilaahay dhamaysato inantu waa ka socotaa inanku sidoo kale waa ka socdaa ninku ma lays oran karaa walaalo cimrigaaga underage-kiisa iyo kaaga kala weynaa qof maanta leeyahay da'da ku nacay suuradayda ku soo diraa mustaqbal waad arki doontaa okay ma lays oran karaa walaalo ma qabo walaalo laakiin laga yaabo ilmahaas inuu iga tago isdhaanaagtaan ilmay dhashay dad baa reere la dega nafsigu waa cajiib walaalkayo Soomaaliyeedow fariintana hadday ku soo gaadho ittaqulla ilaahay u toobadkeen gabadhani may ku aqoon inankan ma adaga dalbaday markii reality ka hadallo oo jeclaaday oo meel baad ku kulanteen ma maasinjar baad iska barateen halkeed ninkan kolkii hore adigu aad ka keentay walaal xataa isku soo baranay حاجة كل فوق شرم كل ذكيها ونسفهني مدة أفر بلاد ونسعنا ولا كلمة ونسعنا سومالي ونسعنا إسلامي ونسعنا هل كانت كبرتين ولا شرم كل ذكيها إنك شرم كل لكن لو مجال وانكذكنا لكن كل وهري ما ترين بو كدعي ما فل بس بو كدعي ما ميل مخايد و كدعي ما halku كدعي way halkee ma ninku ma baan hoof baad ku barat baan hoof kuma bar xalfada isku soo baranaa ku yiri hal meel Soomaali isku imaanay Soomaali isku shireed aan isku baran xalfadaha dumarka ku kalifina
rogow dumarkaa ku kalifina xirfadaha inay soo kharash garoobaan shagac moolsa soo saaraan maykaabka soo badsadaan maadaama ay waxaana dhacayso dumarka laga yaabo inantaas habeenkaa kharashkii galay ilaahay waa nin walba og 6 gacmood 7 gacmood cusburkaa dheeraa huruudda iska ilow maykaabka iska ilow qalin sunnaha daa wixii kharashkii adduunkaa galay kama maarmo waan jeclaa waan u baahana ilaahayna waa lagu soo ducaynayaa ummadda Soomaaliyeed fariintaadu way gaadhay way ku maqlayaan ragga Soomaaliyeed message-kaad gaarsiisay dumarku waa caruur badanaa ragga Soomaaliyeed waxaad arkaysaa ganaagaha single motherka Yurub joogay inka daba ordaa wax kale laguma daba ordaa dhaqaalaha sirka ilmaha yarkaa lagu qaadanayo ugu daba ordaa message-kaagu waa gaadhay ragga Soomaaliyeed message-kaagu waa gaadhay ilaahay ka cabsada malaa'iga gabdhihiina saaran ka xishooda dumarka maanta haddaan naag unbaadin gabar walaasha gabar weydana dhaladka weydin dhashay maanta haddaan naaga ubaahan tihiin 20 eero waa naagaha jarmalka ah waad helaysiin dumarka ha ku ciyaarinina been ha u sheeginina rabbi ka cabsada meeqaa dhibaato ku jirta jarmalka meeqaan hadleynoo xanuunsan way ku maqlayaan ummadda Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed uqaasha Soomaaliyeed arrin la yaab leh baa inoo yaala suldaanka koofiyad baclaha suldaanku dhalay madaxweyne ra'iisul wasaare ku kasta oo xamaaliga ka kartoonka ku dhacay ka meel walba jooga ka tareenka wadow hooy ka tagaasiilahow adeer arrinkan inagu inoo yaala waa gabar Soomaaliyeed wiilku waa wiilkeennii inta qulabaanu leenahay baaqan ka soo jawaab baanu leenahay reality-ga kaale walaalo naftaada waxaan kaagala talinaya waan kasoo baaqaygan hadduu gaadho haddaan teleefonkiisa helo haddaan cid taqaan helo haddaan ehel iyo faamili helo haddaan madaxweyne iga caawiyo helo godkiisaa biyo ugu galayna aniga waxaa jira soo dhammaynaya isagana ana afka gacmaha ka gelinayo soo hadalsiinaya adiguna naftaada deji shanta waqti iska tuko naftaada ha ku kalifin oo shaydaanku yuu kaa faa'iidaysanin in allaaliya intaynu ka gaadhayno xal waara waxa weeyaan baaqaagu Soomaalida waa gaadhay bartani waa bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Joof iyo Johrad subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta waa dhankiina baaqaqa noocan oo kale waa reality waa wax dhaca iska sheeg maaha iska yiri maaha kuturkuteena maaha waa reality ugu kaalay Joof iyo Johrad reality ugu kaalay page-kan u gargaar walaalkaaga dhibanaha haddaba share-ta iyo like-ta iyo subscribe-ta waa dhankiina walaashan Soomaaliyeed nafis baanu ka dhigaynaa insha Allah ninkaana si aynu ku helaba waxaan rajeynaynaa inuu isaguna ka soo jawaabo baaqan wixii reality-na keeno ummadana biyo meel godan bay iskugu imaadaan isku keenno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waxaad maqlaysaa waa jacayl warhooy dad baa isku dileen warhooy cadaaladda ka taliyay sideeduga hawdgabaaroy jacaylku intuu hergiyey harraatiyey baanahay sideeduga waxaad maqlaysaan waa jacaylka inta xabdagayn ku kacay ha laga soo jawaabo